tilmaam academy. بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada koorskeena imtixaanaha ahaa ee English Vocabulary in Use. maanta waxaan rabnaa inaan hadashan ku fiirino chapter 19 oo aan uga hadli doono shops and shopping, dukaamada iyo dukaamaysiga wax loo. marka hore waxaan ku bilaabi doonaa dukaamada jira noocyadooda iyo waxyaabahaas oo kale, kadibna waxaan isla fiirin doonaa shopping sida loo dukaamaystaa iyo waxyaabahaas oo kale. bal aan isla fiirino marka hore section A, kadibna aan ka daba dhahno waa erey aad u gaagaaban markaas. A. Kinds of shops. Kinds of shops. Butcher. Butcher. Post office. Post office. Supermarket. Supermarket. Bookshop. Bookshop. Baker. Baker. Department store. Department store. Chemist. Chemists. Newsagent. Newsagent. Gift shop. Gift shop. These words are also for people's jobs. We often add apostrophe S and say, I'm going to the newsagents to get a paper. Do you want anything from the butchers? Okay. waxaan ka arkaynaa butcher. waxaa la dhihi karaa qofka kawaanlaha ah. kawaanka hilibka lagu gadana waa lahaa. dukaanka hilibka aan kasoo gadanayso waxaa dhehaysaa anigu waxaan u socdaa kawaanka ayaan u socdaa dhehaysaa. kawaanka micnaheedu waxay tahay waxaa ka dooranaysaa hilib waaye. malaaya ka dooranaysaa mise butcher. meeshana waa lahaa qofka sameynayana butcher waa la dhihi karaa isagana. post office waa xafiiska waraaqadaha la isugu diro ama waraaqaha qofka ugu soo dira ka dooranaysa. supermarket waa dukaamada aan naqaano aad ku waaweyn wax kasta laga heli karo. bookshop waa dukaan gaar u ah si looga soo gato waxyaabaha la xiriira waxbarashada sida buugta, qalimaanta iyo waxyaabaha noocaas la xiriira markaas. baker foorna ama la baker roti iyo buskud meesha laga helo. department store isagana waa supermarket camal waaye, waa dukaan aad u weyn oo shaqooyin badan oo wax kasta laga heli karo, everything hadday noqoto dhar, cunno, daawo, waxyaabaha ilmaha ku ciyaaraan iyo waxyaabahaas oo kale. chemists waa pharmacy laga wadaa bis. englishna way tahay pharmacy, marka kanna dadka qaar way isticmaalaan. chemists waa pharmacy waaye, waa dukaanka ka soo helayso daawada. news agent waa dukaan gaar u ah oo lagu iibiyo kaliya journalska iyo magazineska iyo waxyaabaha soo baxay, news markaa rabtid inaad akhrisid iyo waxyaabahaas oo kale. gift shop waa dukaan oo aad ka helaysid hadiyadaha bis, packagingka sida loogu sameeyo loo soo xiro hadiyadaha dadka isjecel waxyaabaha ay isku hadiyayaan iyo waxyaaba noocaas oo kale ah. marka these words are also for people's job. qofaan wuxuu dhihi karaa aniga I'm a news agent, I'm a butcher oo ku dhihi karaa mararka qaar. so mararka qaar waxaa ku daraysaa kaliya apostrophe s aa ku daraysaa. waxaa dhahaysaa I'm going to the news agents to get a paper. waxaan u socdaa news agents kaan u socdaa, ninka oo gado journaaladii waxyaabahaas gada. do you want anything from the butchers? wax ma ka rabtaa inaan kaaga soo iibiyo ninkaas from the butchers, ninka kawaanlaha ah iyo waxyaaba noocaas kale ah. okay. in the department store bal hamar ila fiiriya meeshaan. B. In the department store. A department store is a large shop which sells a lot of different things: clothes, beauty products, toys, etc. Fourth floor. Toys, restaurant. Third floor. Furniture. Second floor. Menswear, children's department. First floor. Women's wear. Ground floor. Beauty. Basement. Electricals. Food. alright. in the department store ayaan noo sheegi doonaa. department store sida hore soo aragnay waa dukaan aad u weyn, waa large shop kaasoo wax kasta lagu iibiyo. different things ayaa lagu iibiyaa sida dharka, clothes, beauty products waxyaabaha la isku qurxiyo, creamska iyo waxyaabahaas oo kale, toys ilmaha waxyaabay ku ciyaaraan, etc.
etc etc ayaa laga soo gaabiyey iyo wixii la mid ah. haddaad fiirisaan department storeska waaweyn, haddaad tagtaan moolasha hadda xamar ku yaallo ama wadamada qaarkood haddaad tagtaan, waxaa ka arkaysaan marka albaabkasaan usoo gashid map ayaa ku yaallo, khariidad dhan oo ku sheegayso sida loo kala degan yahay meeshaan. waxaa arkaysaa 4th floor biyaanada afraad, waxaa ka helaysaa haddaad tagtid toys, ilmaha waxay ku ciyaaraan, restaurant iyo maqaayad. labadaas badanaa lama kala fogeeyo because ilmaha markii alaab loo soo iibiyo isla markaa waxaa la rabaa inay hore ka arkaan maqaayadda, kadibna dhahaan naxaree markaas nagu xareeyo. waa meel kasta adduunkada fiirisaan. 3rd floor waxaa ka heli kartaa laga wadaa furniture, wixii ku saabsan sariir iyo miis iyo armaajo iyo waxaas waxaa ka helaysaa biyaanada saddexaad. 2nd floor waxaa ka helaysaa men's wear, ragga dharka xirtaan, children's department iyo qaybta caruurta dhan ayaa ka helaysaa. 1st floor waxaa ka helaysaa women's wear, dharka dumarka xirtaan. ground floor dhulka markaad tagtid waxaa ka helaysaa beauty. basement dabaqyada qaar waxay leeyihiin qayb basement loo yaqaano, maybe inay taaliga biyaano hoose oo kale. electricals waxyaabaha oo electric ah iyo food wixii cunto ku saabsan xagga ayaa laga helaa markaas. okay, qofka marka haddii uu ilbax yahay uu soo galo mall, ma dhahayo xaggee laga heli karaa dharka, ma dhahayo maqaayad meesha ku taallaa, ma dhahayo. automatically waxaa la rabaa inuu inta baxo oo meeshaan fiirsado, kadibna uu dhaho aniga maanta waxaan u baahanahay dharka oo caruurtan u baahanahay, then uu inta fiiriyo dharka la rabo. children's department igey 2nd floor. maqaayada ka haysaa restaurant aragtay, waa inaad dhigi kartaa I have to go to 4th floor. lift ayaa raacaysaa wiishka, then waxaad tegaysaa biyaanada afraad. marka saasaa la rabaa ilbaxnimada lagu sheegaya inta sir waa markaas. signs in shops, calaamadahan dukaamada ayay ka shaqeeyaan. dukaamada haddii qofka ilbax u yahay ama uu tago meel English laga isticmaalo, calaamadahan waa calaamada markasta uu arki doonaa markaas. bal hamar isla fiirina markaas. C. Signs in shops. signs in Open. shops. open, Closed. closed. Cash desk. cash desk. Please pay here. please pay here. Push. push, Pull. pull. bal ereydaas la fiiri, bal calaamadahaas dukaana aragtay iridiisa oo ku qoran tahay open, dukaanka wuu furan yahay macnaheeda. xilli waxaa la gaaray break, maybe waxaa la gaaray duhura la gaaray, 1 saac oo kale albaabka imaatay oo calaamadii ay ku qoran tahay closed aragtay. waa horaa ka fahmaysaa ma riixaysid because in dukaanka uu xiran yahay arkaysaa. waxaana dhici karta inuu muraayad cad ay ku xiran tahay, dad ay dhex soo socdaan oo shaqaale ah, laakiin ma lagu shaqeynayo sababtoo ah calaamadaas ayaa fahmaysaa ay ku qoran tahay closed. lacagta meesha aad ku bixinaysa say ku fahmi doontaa. cash desk, miiskan lacagta waa lagu bixin karaa waaye. please pay here, fadlan halkan lacagta ku bixi. so meesha directed waa ku leexanaysaa markaas. albaabaha oo kale, albaab ayaa aragtay, albaabaha qaar dadka qaar waxay sameeyaan ayadoo la soo jiidayo ayay riixayaan mararka qaar. mid in la riixo la rabana way soo jiidayaan, kadibna waxaa laga yaabaa inay saas ku jebiyaan albaaba aad u fara badan. si aysan u dhicin albaabka asaga kula hadlayo push oo ku dhahaya riix. so push haddaa aragto waxay tahay albaabka waa inaa saan u riixdaa markaas. albaabaha qaarkoodna se waaye pull oo ku dhahaya fadlan soo jiid oo ku dhahaya markaas. wadamada qaarkood way jelciyaan si dadkay u sii fahmaan. hadda Soomaaliya oo kale albaabaha qaar waxaa lagu qoraa riix, lagu qorayaa marka waa riixaysaa. soo jiid ku qoran meelaha qaarna waa soo jiidaysaa markaas. marka Soomaaliya waa ka dhex bixi kartaa. so waa inaad taqaanaa marka push haddaa aragtid. hadda maalmahan dambe albaabaha noocan oo kale meel walba laga heli karaa, marka waa inaad taqaana muhiim ah. push riix waa, pull soo jiid. okay, waa calaamadaha dukaamada badan aad ku arkaysid. okay, expressions aan fiirin doonaa markaan. laba qof oo isticmaali doonto oo sheekaysanayso. qofaa shopping inuu sameeyo rabo, marka wuxuu la sheekaysanayaa shop assistant, qofka dukaanka joogo dadka inuu caawiyo jecel, inuu dadka caawiyo shaqadiisa ay tahaba. walaal maxaan kuu qabtaa, maxaan ku siiyaa, maxaan kuu tilmaamay, qof ku dhaha waa e-customer ayaa sheekaysanaya. qofkan marka koowaad oo shop assistant waxyaabaa lagu tababar waxaa kamid ah inuu kor ka arko, markuu kor ka arkabo inuu ku dhaho walaal maxaan kaa caawiyaa, inuu ku dhaho can I help you, maku caawiyaa oo ku dhaha. then waxaa dhahaysaa yes, can I try this shirt on, shaatiga ma isku jimeyn karaa. goes and tries it on,
soo jimaysa ka soo qaad kadibna waxaa rabta inaad dhahdid shaatigan shaati ka weyn ma haysaa kalarkan kalar ka duwan ma haysaa mid ka yar ma haysaa see u dhahaysaa markaas waa very important muhiim waa markaas waxaa dhahaysaa have you got a bigger one adhaysaa mid ka weyn ma haysaa bigger have you got a bigger mid ka weyn ma haysaa mid ka yar rabta waxaa dhahaysaa have you got a smaller size oo ka yar ma haysaa midkaan hadda isku jimeeyey mid ka yar ma haysaa okay kalarkan dhan ma rabtid badiga waxaa leedahay have you got a different color kalarkan kalar ka duwan ma heli kartaa adiga kasaa markaas ninkan muxuu ku dhihi karaa no I am sorry no ma heli karno maya that's the only one asaga bes ayaa ka yaalo that's the only one asaga bes ayaa ka yaalo customerka wuxuu leeyahay okay I will take it waa iska qaadanayaa marka horeba wax yar ayuu uga weynaya laakiin waa iska qaadan karaa camal how much does it cost meequu joogaa lacagtiisa meeqa waaye cost lacag waaye how much does it cost meeqa lacag ayuu joogaa ninka wuxuu dhahay shop assistant wuxuu dhahay 22 pounds ayuu dhahaa 22 pounds ayuu joogaa can I pay by check uu dhahay ninkan maku bixin karaa check warqad yar oo qoran oo saxiixa u sameynaysa alada bangiga doona markaas kadibna shop assistant wuxuu leeyahay no ma heli karno check ma qaadan karno credit card aan qaadan karnaa debit card waa qaadan karnaa cash waa qaadan karnaa please intaas waa qaadan karnaa or cash intaas midkoodna sii chapter ku xiga ayaan ku baran doonaa credit card suu u yaalaa iyo waxyaabahaas oo kale cashna waa ogolnahay sorry I only have 50 pounds note aan hayaa dhahay ninkan 50 pound oo isku dhegan bes ayaan hayaa dhahay maadaama laga rabo 22 laga rabo 50 isku dhegan ayuu hayaa marka wuxuu leeyahay I don't have any change wax sarif ma hayo coins ma hayo shilimaad ma haysto smaller notes ma haysto hadduu heli lahaa ninkaas lacag 10 hadduu heli lahaa 30 ayuu inta bixiyo ayaa loo soo celin lahaa lacag aad u yar 8 oo kale okay that's okay allahi okay waaye nasiib bal intaas 50 nasiib here is your receipt rasiidkaagana qabso here is your receipt waa kana rasiidkaaga warqadda cadeynaysay in lacagta uu bixiyo qofkaas would you like a carrier bag or would you like a bag ma rabtaa like bac yar ama meel aad ku ridid ma u baahan tahay la bag yar fahamsid bal hamar asal dhegeysano sidee uu dhahaya markaas D. Expressions. Can I help you? Can I try this shirt on? Have you got a bigger or smaller size or a different colour? No, I'm sorry. That's the only one. Okay, I'll take it. How much does it cost? £22. Can I pay by cheque? No, credit card, debit card, or cash, please. Sorry, I only have a £50 note. I don't have any change. That's okay. Here's your receipt. Would you like a carrier bag? that's it inshallah chapterkan oo asagana halkaas ay ku gabagabeyn doonaa sida noo ahayd caadada waxaa markasta chapterka naga dhamaada aan sameyn jirnay waxaan ka shaqeyn jirnay exercise-ka uu wato chapterkaas kadibna waxay noo cadeynaysaa chapterkaas in aan aad u fahno inshallah markaas okay waxaan baran inshallah next chapter intaan ka gaareyno see you inshallah nabadgelyo